odayaasha siyaasiyiinta iyo dhalinyarada gobolka Awdal oo kulan ballaaran ku qabtay Sow Hotel ayaa lagu soo dhaweeyay xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale doorashada loo doortay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland waxayna u mahad celiyeen golaha baarlamaanka ay ku tilmaameen inay si cadaalad u doorteen Axmed Yaasiin oo ku tilmaameen inuu yahay halii qaran oo ka shaqeyn doona midnimada iyo jiritaanka Soomaaliland waxna ka qaban doona waxyaabaha qabyada ka ah golaha baarlamaanka ee dhinaca sharciyada baarlamaanka horyaala odayaasha siyaasiyiinta iyo dhalinyarada oo taageero u fidiyay xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale waxa daladoodii kamid ahaa waan hambalyeynaa xildhibaan Axmed Yaasiin doorashada loo doortay inuu noqdo ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada runtii waa guud ahaan doorashada ka dhacday baarlamaanka ay ahayd doorasho aad qiimeeda u leh waa guul weyn oo Soomaaliland soo hoyatay waa doorashooyin xaqiijiyay wax wada lahaanshaha Soomaaliland marka xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale hawshiisa cid kasto ka soo shaqeysay ayaanu mahadnaqaynaa xildhibaanadii tanaasulay iyo kuwii codka siiyayba waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa oo idinku taaniyadeynaynaa xildhibaanadii doortay madaxdii ka soo shaqeysay madaxweynaha dalka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo kafarka dalku aad baan ugu mahadnaqaynaa waan ku hambalyeynaynaa cid alla cidii ka soo shaqeysay haday xildhibaano tahay haday xukuumad tahay haday salaadiin tahay haday dadweyne tahay alla cidii ka soo shaqeystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maanta ku fadhiyo Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale aad iyo aad buu mahadsantiin isagana waxaan leenahay anagu haddaan gobolka Awdal nahay magacaan leenahay laakiin manfaca Soomaaliland baa leh Soomaaliland baad u shaqeynaysaa Soomaaliland baa ku dooratay waxa tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Soomaaliland bari iyo galbeedba waad u dhaxaysaa dhammaan madaxtooyada gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka musharax madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dhammaantood u guntaday inay kursiga guusha lagu gaadhay Axmed Yaasiin iyagu ay gacanta hayeen cid alla cidii garab ku siisay cidii gacan ku siisay cidii ugu gargaartay cidii u codaysay cidii mataqaana arabka ka jecleed iyo intii caloosha ka jecleed ba hambalyaan leh gaal iyo maxay ayday dalka inaga maqnee cadaaladda sameeyno ayay aqoonsigeenu ku xidhay kolba sida cadaaladda u sameeyno ayuu Ilaahay inoo aqoonsan Ilaahay cid aqoonsanayna dad kale oo baxdo waxaan leenahay waa nin daalka lagu iloobi kara Axmed Yaasiin kamana dhaxaysiye fikirkiisa cid uu taageerana uu taageero kulmiyuu taageeray salaadiintiisa iyo dadka halkan joogaana waa kulmiye saaxiibkay Maxamed wuxuu yiraahdaa xisaabta oo dhan ayaa codka siisay waxa soo saaray horta waa xisbiga kulmiye Maxamed waxa weeyaan marka waxa kale oo labeynay runtii oo aad iyo aad halkan aan rabaa inaan hortiina uga mahadnaqo madaxweyne ku-xigeenka kusimaa madaxweynahana ah musharaxa gudoomiyaha madaxweynaha runtii aad iyo aad baan halkan uga bogaadinayaa dadaalka ay ka galeen iyo go'aanka ay ka gaadheen xisbiyadii ku tartamayeen nin walba lahaa u tartamayuu lahaa ninkaas haydii soo gacan galo kulmiye ku guuleystay kulmiyana waxaan leeyahay waa ka ninkii aad u baahnaydeen qabta gacanta qabta hay oo la shaqeeya saddex xisbi baa jiray Soomaaliland oo soo halgamay xisbigii NUF la oranayay iyo xisbigii SNL la oranayay iyo xisbigii USB la oranayay saddexdaa xisbi waxa ku soo dhaqmeen qabyaalad shaqo kuma ay lahayn Soomaaliland ay ku soo dadaaleen oo ay wax ku doonayeen oo ay wax ku heleen maanta waxaan xasuusinaysaa doorashada Axmed Yaasiin inay tii soo noqotay Soomaalilandnimadii inay soo noqotay ayaa wayna xasuusinaysaa oo maanta aan loo eegin qolo iyo gobol iyo xil kala toona ee loo eegay wax tara Soomaaliland wax u qaban kara waxaan leeyahay anigu war halka laga wado ummadda Soomaaliland ha ku noqoto xisbinimadii oo ha ka tagto waxaan ku yiraahdaa qabiilkii iyo gobolaysigii ha ka tagto dadka reer Awdal wuu anfici dawladda Soomaaliland wuu anfici Allah u barakeeyo xilka uu saaray وعذر عافي تفي قرنكا برما